taliye ku-xigeenka ciidamada dabdamiska gobolka Togdheer ayaa saaka warbaahinta u sharaxay howlgal ay xalay ciidamadu ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Gurigaas oo ay ku naf waayeen 2 carruur waana kan isagoo taliyuhu sharaxaya khasaaraha mood iyo nool ka dhashay gubashada gurigaasi. xalayto markay saacadu ahayd abaaro 9:18 waxaa lambarka ciidanka dabdamiska gurmadka degdega ah 990 ee gobolka Togdheer lagu soo wargeliyay dabkaas oo noociisu ahaa jingad iyo xaween guri buula oo isku yaala ciidanka dabdamiska oo heegan ahaa oo xiradooda ku sugnaa ayaa isla markii lambarka xaween ciidanka dabdamiska la soo garaacay kaga baxay wax ka yar 1 minute xiradooda iyagoo u gurmanaya qayradhaanta la soo sheegay. ciidanku markii ay tageen goobta waxay guud ahaan xakameeyeen dabkii ay waxweyn goobta ka jiray oo ay isku dayeen sidii ay u badbaadin lahaayeen dhammaan intii aanu gaarin dabku. ciidanka dabdamiska oo adeegsanaya tababarkoodii u gaarka ahaa waxay ilaahayna ku guuleeyay inay halkii uu dabku marayay ay ku xakameeyaan. waxa goobta waxweeyaan ka dhacay khasaare nafeed oo dhan 2 carruur ah oo waxweyn geeriyooday iyo hal qof oo carruur isna ah oo dhaawac ahaa oo la soo simata bixiyay. waxaanu waalidkii dhalay ubadka aanu leenahay ilaahay samir iimaan ka siiyo tadhaawacana waxaanu leenahay ilaahay caafimaad degdega oo sariica ha siiyo. ciidanka dabdamisku waxay isla markii ay xakameeyeen dabka ee ay dhameeyeen ay dhakhtarka weyn ay u soo qaadeen 2 qof ee meedka ahaa iyo ilmihii yaraa dhaawac ahaa oo ahaa inaan dhimashadu waxa weeyaan 2 wiil oo yaryar oo kala yar mid yahay 2 sano jir midna 3 sano jir. ciidanka biliiska iyaguna waxa weeyaan goobta joogay iyaguna aad nolol shaqeynayay annagoo iskaashanana waxaanu gurmad u fidinay inaanu dhakhtarka weyn keenno ilmihii yaraa ee dhaawac ahaa oo waxa weeyaan ay dhakhtarku la tacaalo. waxa weeyaan ciidanka dabdamisku waxay mar walba ay u taagan yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen ummadooda. ilaahayna waxa leenahay nala garab qabto waqti kasto aad soo garaacdo lambarka ciidanka dabdamiska oo ah 990 waxa ay isla markaa meesha laga soo sheego qayladhaanta dabkaas ay ku gaaraan. waxa weeyaan waqtiga la soo sheegay waqti ka yar 6 minute wax ka yar waxay xiradooda kaga baxaan 1 minute wax ka yar. gabagabadii taliye ku-xigeenka ciidamada dabdamiska gobolka Togdheer waxa uu bulshada ugu baaqay in aanay carruurta kaga tagin guryaha kaligood. sheegaya waalidiinta in ay waxweyn marka uu waxaanay carruurta in aanay kaga tagin waxweyn guryaha oo ay waqtiga ay ka tagayaan aanay iyagoo waxweyn guriga cid leeyahay ama carruurtoodii yaryar oo caydiya aanay kaga tagin guryaha. taasaan waalidka aan sheegaya aan markoodii marka labaad baan ku boorinayaa shacabkana waxaan leeyahay marka dab aragtaan intaydaan idinku aydan isku dayin in la tacaashaan dabkaas oo aad baqtisaan waxa weeyaan in aad isku daydaan in lambarka ciidanka dabdamiska 990 soo garaacdaan waayo khasaarihii uu badan karaya marka aad lambarka ciidanka dabdamiska aad soo garaacin adigu aad isku daydo marka hore adigu aad isku daydo in aad baqtiso marka aad baqtin kari weydo hadda soo garaacdo lambarka ciidanka dabdamiska way ku adkaanaysaa waxa weeyaan in khasaarihii laga soo gaaro. marka waxaan shacabka aan u sheegayaa in ay waqtiga ay arkaan dabka intaanay iyagu aanay ku dhaqaaqin inay soo garaacaan lambarka ciidanka dabdamiska. Sheybe Umar Ismaan warbaahinta SBC magaalada Burco.